هي حاجة soo socota oo qisadan oo kale ay dhageysta gabadh Mareykan joogta qof dumar ah iyo nin jooga Johannesburg South Africa jooga baa xiriirkan lahaa guur bay ku heshiiyeen sawir bay u soo dirtay inay ismeersadaan oo timaaday ku heshiiyeen way timid uu diiday wuxuu yiri qofkan yimid iyo sawirka ii soo dirtay isku mid maaha sawirkeeda mid aan ahayn bay ii soo dirtay oo diwaaka sawirkan anigu hayay badinku qofkan fiiriya labadan isma balehe tiq iyadana waxay tiri hadaad diiday kharashkaadi soo gelisay inaad bixisa waay garta waxaa la isoo haystaa kharashkaad soo geliyay anigu waxaan ku soo geliyay sawirkane qofkan ma soo gelinay waata ruuxa kharashka soo geliyayna maaha haddaan garteeda galay waana dadkan kala fog ee xiriiraya de qofkan sawirka ku soo diray kiisiiru yahay mid kale inuu yahay sawirkana waa la naashnaashi karaa oo laba kun iyo 1997 waxaan airportka Nairobi kula kulmay anigoo Yurub ka yimid nin laba caruur la soo cararay hadda ninkii magaalada Nairobi jooga labadii caruurta ay halkan aan transit iska raacnay oo Kampala ka degnay inteebaan gaari ka soo raacnay Nairobi aan ku nimid oo inteebaan dana kala hayn isagana laakiin travel document wato xaq ka dhigay kaliya labada ilmood ee uu la soo cararay hooyadood bay islaayeen oo wuxuu iga sheekay diyaaradda inta ku jiraan sheekaysanay warwar ma ku isna waa isnaqinimo arday wada ahaan jiray waa qisada kale uu sheego wuxuu yiri gabadha Sacuudiga aan ka soo dhoofiyay sawirka ii soo dirtay ana wata airportkii markaan nimid dadkii iyadii way daba martay oo intaan gabadhii waayay baan iyadii imada walaalay gabadh heblaha ma aragtay baan ku iri waa aniga ay tiri buri wadnaha la ii dhaafay sawirkan haystay ruuxan isku mid ba ma marka waxa rabaa inay yiraahdo wanooy sawiradan intii la casay la kala reeyay sida laga dhigay wiilii gabdho wala isoo dirayo xaqiiqada kama turjooyaan marar badan taa 97 haday ahayd hadda usbuucan aan ka yimid mid kala garteeda marka xaajadu sidii ay u taagan tahay baad garan billahi tawfiiq jazakallahu khair